السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رالي هذا اللي يسوي أساسا كسر قلي إن dhibaatooyin badan baa jira marka waa soo dhaweynayaa soo dhawaada programkana subscribe hala saaran ku leeyahay meeshiinana iga soo jawaaba sida haday aan facebook inii sheegay waxaan rabaa inaan laba kelmadood aan iraaho labada kelmadood oo leeyana waxa kamid ah ninkii la dhahayay ra'iisul wasaare Khayre ayaa hadda waxa la ii sheegayay inuu duulay oo aaday wadanka Ruushka si hayeeshe sababu maxay tahay uu aaday wadanka Ruushka waa inii macnaynaya midasbiyaasha aadan uga xumahay maaragtay dadka xisbiyada oo haday ogiin hadaynan ogeyn insha Allah waa loo sheegaya waana gaaraysaa marka waxaan rabay inaan idin sheego in hadda ka hor waxa jirta sheeko uu ku aaday markii koowaad uu aadahay maan Xasan Cali Khayre oo markii labaad hadda ka hor intuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya aabuu aaday Ruushka hadal ay asagay farmaajo isla ogaayeen ayaa jira hadalkaas oo ahaa sida ay iskugu bedbedeli karaan asaga iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadanka Soomaaliya ay gacanta ugu dhigi karaan si dhaqaalaha wadanka u boobaan in weeyaan ujeedada oo khayraadka ninka lagu leeyahay Xasan Cali Khayre interestkiisu wuxuu yahay waa khayraadka Soomaaliya ninkan khayraadkaas inuu Norway company-giisa oo shirka ku yahay uu ku daro in marka maafiyada oo xalana fadhiyo marka sheekadii watii ay ku soo baxday oo la ogaaday wixii ay ka wada hadleen asaga iyo madaxweynaha maaragtay Ruushka hadda maanta muxuu u noqday uu aaday tii ayaa la rabaa tala inta laga siiyo intuuna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uuna ka deganin marka anigu waa inii sheegay horena waa inii ku sheegay Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waa isla shaqeeyaan anigu waxaan aaminsanahay weli inuu ra'iisul wasaarihi wadanka yahay laakiin ninkan la leeyahay ma aragteen Roble oo maqaarsoor wadanka ka yahay taas ayaan inii sheegaya inuu maqaarsaar yahay laakiin uu ra'iisul wasaare ahayn aniga si ka hor bil ka hor la igu sheegay Xasan Cali Khayre weli shaqadiisii inay taagan tahay marka sheekadan iyo hadallada adigu ku hadlaayay iyo sheekooyinka xisbiyada uu iskaga gadaayay iyo waa wax oo xisbiyada uu iskaga gadaayay laakiin waxaan inii huba hadalkii waago ra'iisul wasaaraha uu u baxay oo maantana asigoo ra'iisul wasaaraha uu u baxay ninkaana maqaarsaar uu yahay waxa la rabaa indhaha shacabka Soomaaliyeed in laga duwo marka waxa ku cad Khayre iyo Farmaajo inay weli wada shaqeynayaan oo xiriirka hoose uu ka dhaxeeyo sababta uu aaday Ruush taas waaye farmaajo ay wada hadleen xalay sida wiilku ii sheegayo soo waco telefoonka igu soo wacay xalay la wada hadlay go'aan waxa lagu gaaray ninkaas inuu Ruushka aado uu yiri marka shaqadii waxa socota aniga iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saan isku bedeli karnaa anigu madaxweyne u noqon karaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo prime minister u noqon karaa tacticadaas ayaa laga doontay wadanka Ruushka iyo shirqoolkaas wax kale laga ma raadsan maxay ka leeyihiin xisbiyada Soomaaliyeed iyo ragga u taagan inay madaxweyne noqdaan waa wax aad iyo aad looga xumaado oo loo waxeeyo qaa'inul wadanka iyo dhibaatada uu ku hayo anigu maxaan yiri hadda ka hor asagoo telefoon ku daldalmaayo oo rag gaala la hadlaaya ayaa telefoonka lagu qabtay oo la yiri maxay tahay Khayre waxaad ka hadlaysid yaa way dadka aamus ruftid yaa way dadka kirada iyo cabitaanka iyo waxa sheegaysid aad ka bixiso Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur aad bay uga xumaadeen ayadoo waliba tii oo dilmadii oo asaga iyo Farmaajo ay ku heshiiyeen oo lagu baabiyay ciidamadii ma aragteen Cabdiraxmaan Cabdishakuur wali qiyaamadii ayuu dabada ka wadaa waxa la yiri qofku markuu qiyaamo loo yahay waa boodboodahaya moogtahay arrin oo international ka soo xiri kara male nimanka uu asagu exactly oo la socdo hadda Ruushka asaga danta ugu jirta waxay tahay asaga iyo Farmaajo inay isku bedelaan midna prime minister noqdo midna madaxweyne noqdo tiibo mar labaad hadda u noqday مفهميسا ولا حسن شيقي ولا من أودن كله يهم ماله مركز تاس أياكو عدينيسا ودنكو إنه هالس كصعدة وحسن على غير وبينلو وهتوقة ولي شيء كذا سياي والعق بدن ودنكو وكان عينا أي مغنتاي وأسيق حتى لو هيستو محكمة وأسيدا أي فرماتش إيدك في سوشيجا هي لكن فرماتش وحن أجنه هاي وحا أو دعي غير أنت إذا كلا أصبر ودعي wadanka xoolihii wadanka iyo shacabka waa loo tashaday Khayre iyo Farmaajo u tashaday maantana waxa ku cadeynaysa bal aqliga uu leeyahay ku leeyahay xiriirkii Ruushka anagu soo celin mayna xiriirkii Ruushka hadan Soomaalinahay waxba uma qabno cilna uma qabno laakiin xiriir soo celin mayno ma Xasan Khayre xiriir soo celinayo Soomaaliya xoog Ruush ugu qabanaya waa ulajeedada uu wado iyo inuu ciidamo weydiisto ulajeedadaas wada marka Soomaali waxa la leeyahay ninkii hurdada ka kac Khayre waxyaalo islaamnimada ka baxsan ayuu sameeynayaa wuxuu bilaabay banaanbaxu bilaabay wuxuu u shaqeynayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si oo asagu madaxweyne u noqdo Khayre Farmaajona u noqdo ra'iisul wasaare marka hadii ay Soomaalidu u maleeyaan inuu wax fiican sameeynayo waxba ma sameeymayo ninkan Khayre iyo Farmaajo waxay uga dhagan tahay khayraadka wadanka si u beecin lahaayeen oo nimankan hawiyana qoorta loogu dhufan lahaa wax kala ma dadkii waxaan arkayay daraato xaad oo aan arkay saad uga u hadlahay ya
marka waxa weeye wax laga xishoodaa jirta baro shalay markuu hawiye soo raadsanayay oo dhahay qalad baan galnay hana la cafiyo maanta qaladku wiilkiisu galay soo qalada badan ma international ka baan siyaasi ma waa daba dhilif xasan cali khayre ana runta inii sheegay waa daba dhilif ee uga dhagan tahay khayraadka Soomaaliya see ku soo saartaa see share uga hesha see lacag uga hesha see kambaniga Norway-ka aad ugu xirtaa oo ayakana ugu lacagaysataa aadna ka lacagaysataa marka waxaan leeyahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo qurba joogta reer Mareykan reer European waqtigii hurdada laga kici lahaa oo wake up la sameyn lahaa oo la tuso in laga siyaasad badan yahay khayr siyaasad ma wado wax siyaasi liiraah oo hayana male waa waxa weeyaan waa kalgi taliye farmaajo wax ma dhaamo waa laba nin oo weligood one day iskuma ayna dhicin waa show off loo dhigayay shacabka Soomaaliyeed in lagu seexiyo ما فهميسان لكن واحد يقدر سياسيين تسان أركي وبابي غير أو صوت ويستو ولي بالله شيء مركز أنتوا حلبان هذا قلم تقول لها بروح كلية وإن إنسان سمينا وربي كيرفول كهذا حلبان هذا قلم تقول وأكتين وحول نقول سميه حس على غير عنك والله يدي الله ولا فرماتش ولا غير وحب اسمه مكاي دامان أنا قلت هاس بوبليك برينا وكاد لدونا مركز وحليه وإن بكيرفول لقى هذا نك غير اللي هي وحو وشقينا هي فرماتش ولا أريسي أيوة وذا ولي iyo dantiisa wuxuu rabaa ra'iisul wasaare inuu ka dhigo nimanka dadka dilay waa labada nin oo wadanka baabiisay oo shacabka baabiisay oo dadka dilay oo meedad islaameed duugay oo habeenba meel ku booday oo ma aragtay container niman habar gidira xasan al qeyr ma wuxuu malay intaas loo dhaafayo nafla caari waaye meel dheer ma gaarahay insha Allah biidnillaahi kariim wali lillahi iyo laqdaba meel ma wada galaan marka xasan al qeyr waxaan ku leeyahay bood waxa la yiri shimbirta buubtaa la yiri irsaaqadeedu dhulkay taala bodbooditaankaadu waa batay beentaada iyo propagandadaadina waa aragnay marka aad baa lagaaga wada waa lagu soo dhaweeyay laakiin dhaweyskii ayaad waxaad u malaysay inay wax kala tahay waa wax laga xishoodo waa wax ma aragtay Soomaalina maanta ay kugu fahansan tahay kooda yarna una ka yeelin hawiye badan baad qashay dhakhaatiir baa wada qasheen adiga farmaajo dhakhaatiir niman saraakiil ah ayaad ku dugteen kabahooda naaga uurar la ayaad ka takhalusteen marka waxaan ku leeyahay xasan al qeyr ha u malayn Soomaali inay diyaar ku tahay ku aaminayso xildhibaanada waxaan leeyahay Soomaaliyeed gobol kasto ay tihiin qeyr waa ki kursiga u cad kursiga ka sokoona waxa u cad khayraadka galmudug sidii uu ku seel garayn lahaa oo gaaladii uu lacagta ka qaatay oo shalay lacagta siisay si uu ku waxayn lahaa ayadoo la ogeyn dhaqaalihii wadanka meesha uu ka baxay ayadoo la ogeyn waana wax laga xishoodo oo laga ashahaato weeyaan ninka noocaas oo kala marka waxaan leeyahay wuxuu isku maleeyaa inuu ka aqli badan yahay oo ka mug weyn yahay oo siyaasad la imaan doono siyaasad ruush ma socoto waqtigan iyo Soomaaliya waqtigan ilaahay ka soko waxay u baahan tahay dad madaxa oo degan oo wadankan dib u heshiisiin wax la yiraahdo galiya oo isku soo dhaweeya qabiilooyinka Soomaaliyeed qayrana maxay uga caddahay in uu ninkan wada weedin ilaa maalintuu soo koray wax ma oona qaban intuu qadar borsal lacag hala keeno dawladda qadar diyaaradii ay soo dirahayeen oo daroogada saddex u dhiga lacagta asaga Fahad Yaasiin farmaajo akoonka magaca Soomaaliyeed lagu furay hadda ayaa ma dhaweeto waa laga wareejiyay sheekadaas socoto diyaaradda afisyoona lagu leexiyaa diyaarad kale afisyoona ku leexata ma jirto marka waxaan leeyahay xasan al qeyr hadduu isku maleeyo in uu Soomaaliya gumeyn karo ama hawiye uu gumeyn karo madaxa ka garaaci karo adiga lay godka ku dhicina ku leeyahay dhigad baa lagu haystaa dadkii akabaha ku dugtaa lagu haystaa taleefanadii CID da u soo dirtaan la soconaa nimanka containerada aad ku dishay oo qoryahana aad ka guratay aan la soconaa adiga iyo farmaajona waxyaalo badan ayaa wadanka ka sameeyeen haddaan isleedihiin maxkamadda ka carara ruush u taga siyaasadda isku badbedelka ruush ma ahan inay xoog ku haystaan wadanka siyaasadooda ninkii roon ayay wax u taraan laakiin waxaan ku tusaynaa inaadan ba iyo ta'midna ka noqon wuxuu yiri diidino waa lagu tashadaa liiri soo aniga meeshii lagu tashanay ilaahay ma joogin uu yiri marka waxaan rabaa hawiyo waa waqtiga cidii nahira ad wikayb aad noqon lahaydeen hurdada aad ka kici lahaydeen maca daaroodka naftooda isbishal Axmed Madoobow inaad hadal oo sheego qayra aan rumaysato waa habeenka xalaawtay guriga aan rumaysan shirqool qof kasta dambu ka leeyahay nin kasta inuu dabo jecel yahay kelmad xalaal ma yaqaano xasan al qeyr kelmad xalaal afkiisa kama soo marto xildhibaanada galmudug markuu la hadlaayaan arkay waxaan in leeyahay we know waxa uu yahay xasan al qeyr xildhibaanada galmudug iyo cidina koonfur galbeed dhibaatadii ka dhacday iyo dhiigii ku daatay waad ogtihiin ku leeyahay waxa anigu inii sheega ma aha marka waxaan leeyahay
وأكتين ولا فرماتش ولا قير من نوفي عن أنك متشرو ولا من أو نصاب مرتي أو أنك سبحان الله سنين أو أنك تاجنا هاي أو مركا وجهه دارنا الله سبحان الله إله الصومالية كهاي ما دتك سحر ذا كاني ما دتك بلايو دن كاني ما دتك دعي ودنكي ما دتك دعي دتك ما بيو قادين حوله لو وصل تلقى ما دتك كشقينا يا حفيز رئيس الوزراء أو هبرجد قبليه رخصين تقدر كتابة المادة رديس كاني ما وروح اللو قادين كرينا كلها مركا حس على الغير حتى قروش wax siyaasadu soo celin karo ruusha ma jirto marka waxaan leeyahay cidina hiraab nacsiyaal nacsi kala jirin baatiin siyaasiintiina hiraab ya farmaajo iyo xasan cali qayre way wada shaqeeyeen waligayna waa inii sheegayaan maantana waa aragtaan soomaa waxaan sheegaya inay soo baxeen anigu qofka been kama sheego farmaajo iyo qayre waa wada shaqeeyaan ninkan waa maqaarsaar ninka daraha kala wada waa ninka isbiyada ah oo in ku dhex jira adinka ma aragtay xildoonka ah raggiina madaxdoonka ah dad nimanka in ku dhex jira waay ma fahmaysaa marka saasaad u ogaanaysaan waxaanu inayna dheeldheel ahayn ayna kaftan ahayn haddii puntland ka yeeshay haddii jubbaland ka yeeshay haddii qabiil kale ka yeelaan I don't care laakiin waxaan ku leeyahay farmaajo iyo xasan cali qayre waa isku kaaya leeyihiin waa laba nin oo noo gamban waa laba nin oo saxaal og miyay sheegaysaa sababta ruushu aadahay رئيس الوزراء ما وحماهم مركو لا كل ما هيو محو لا كل ما هي ما هي اسكو شيء هيا ما حق وعد تيتول كي رئيس الوزراء وكسعدا لقى ما قادم شيء كذا محو وريجين واي ما وريجيناي بركي أسجع رئيس الوزراء نكان أسجع هوستجا ومقرصار الله دري بوتلين روبلين لكن رئيس الوزراء ودنك هرين وين يكون شيء عاون وين لا الريال رئيس الوزراء ودنك وحسن على القير أو إسبياء وكل حد يريح إسبياء إنه ورك كجرو وسياسيين هذا الكود وقاعد كنت شارع وحنا نيري ورسكا إلى حسن على القير حلال ما هني اسكا إلى نيري لك أنت إنك جش تكلوا كبر حميدين مدحوينا ما هن رئيس الوزراء ما هن وزراء المدبرين ما هن محوك دون الروش مش شيء كرتان وكا وردها لقى عدة هنا واتشيفتان لكن وردada inaa ka kacdaan waay siyaasadda adinku la ogtiin inaynan ahayn aniga waa ogahay waa sheekadii uu shalay u tago yiri ii sheeg sida aniga iyo dumaashigay aan iskugu badbedelno anna madaxweyne u noqdo farmaajo ra'iisul wasaare u noqdo farmaajo madaxweyne labaad noqdo aniga ra'iisul wasaare labaad noqdo saas tacticada aad samayseen ii sheega la yiri laakiin ilaahay soo ma joogo ha farmaajo iyo qayraba kuma guuleysanayaan wadanka Soomaaliyeed xabsiyayna galahayaan maxkamadaana la keenayaan waa rafanahayaan boolbari iyo buski ayay ku dhex jiraan ku leeyahay buska maartay ay ku dhex rafanahayaan saana maxkamad loo geynin oo dawladda ay dib ugu soo baxaan qayraad bay uga dhagan tahay ilaahay iyo nabi maxamed aan kula ilaahu meesha fadhiya aan ku dhintaa inayna ka ahayn inuu madaxweyne noqdo oo Soomaaliya wuxuu qabto oo wuxuu sameeyay qayr ramaan qayraadkaas dadkii iyo gaaladii oo lacagta ka dhacay markuu ka soo cararayay Norway Ingiriiska soo dagaayay xaafadda Wimbledon Wembley oo ku taal London oo ka furanayay meesha internet shopka wallahi waa taas maxkamad baa uga socotay Norway waxa la yiri dad oo musharax yahay hal dhaafaa la yiraahdana maxkamadii wax kale u rafan maayo ninkan qayraadka Soomaaliya soo gacanta ugu dhig lahayd ajnabi gacanta ugu gelin lahayd cudur kale ma qabaan asaga iyo ninka lagu leeyahay ayna sheer uga noqon lahaayeen wax kale oo tala ay haystaan male marka anigu waxaan leeyahay ninkii chiefka ka kac Soomaaliya waxa ka soo baxay dalaaliin tuuga ah oo afminshaara oo qayre iyo farmaajo la yiraahdo oo dhiigyacaba oo Soomaali kabahoodi ku duugay oo qalay oo ilmo yar yar oo 9 jir 7 jir 14 jir ka dhigay al-shabaab inay yihiin oo beer falanayo beertoodi dhex jooga in Mareykan dilo oo dacwadoodi ilaa hadda Mareykan ay ka socoto lacagta oo qaadan soo u sii waday oo lacagta oo ka dhacay bangeedana soo u sii waday wuxuu ku shaqtay company-giisa maxaan ka hadlaynaa ma qayrana aaminayna no marka xasan sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo waxaan leeyahay sheekh shariif iyo dadka kaleeto walaal nimankiina hiraab waa chiefka ka kaca nin aan ra'iisul wasaare ahayn oo arrimo dabadeed aan ahayn oo arrimo gudeed aanan ahayn oo madaxweyne muxuu ku tagay ruushka uu kala hadli karaa oo siyaasiyan waa si isku bedelnaa aniga iyo seedigay waana wada shaqeeyaan kun jeerna waa inii sheegay birina waa sheegahaya waxaan leeyahay saas ula socda sheekadii baa socota in farmaajo ra'iisul wasaare noqdo qayrana madaxweyne noqdo ilaahay ma badahayaan ku leeyahay ilaahay ma badahayaba kabaha la gadinaya qayr iyo farmaajo waa laba tuug oo hoosta ka wada shaqeysa weeyaan laakiin la rabo shacabka Soomaaliyeed in laga dharjiyo inay isdagaalsan yihiin marka waa in salaamay barnaamijka la isku tuuro hal la isgaarsiiyaan ku leeyahay
waa arki doonaa